meelaha ay dumarka hadda jiraan ragga ka qiimeeyaan. Haweenku siday kala duwan yihiin ayuu kala duwan yihiin dooq ahaan. Taasina waxaa keenaysaa inay kala aragti ka noqdaan marka ay qiimeynayaan ragga. Qaar baa meelaha ay doorbidaan ay ku qiimeystaan qofkooda. Balse waxaynu falanqayn doonaa dhinacyada loo badan yahay iyo goobaha ugu caansan. Wiilow, adiguna intaan iska dhis si qofta ay kaaga hesho. Waxaan kugula wadaagi doonaa 10 meelood oo ugu caansan. Number 1. Wejiga waa goobta ugu horeysa ee ay gabadhu ka eegto ninka marka ay kulmaan ama xitaa markuu sawir soo diro. Number 2. Gedhka iyo shaarubaha waa goob ka mid ah wejiga balse muujisa aragti culus ama qurux soo jiidasho leh. Gedhka iyo shaarubo gaaban oo si qurux badan loo habeeyey ayaa ah calaamad fiican oo ay qiimeeyaan haweenku. Gedhka iyo shaarubaha oo la qurxiyaa waxay wejiga siisaa muuqaal dabiici ah. Number 3. Quruxda jidhka. Ninka jidh ahaan u qurux badan wuxuu soo jiitaa dumarka. Waana meelaha ugu caansan ee ay dumarku ka eegaan ragga, gaar ahaan jooga dhererka wata. Number 4. Labiska, dhar xidhashada. Calaamadani waa mid ay ka siman yihiin dumarka inay wada eegaan. Waayo sidaynu horey u soo sheegnay, dumarku waxyaabaha ugu weyn ee ay qiimeeyaan waa quruxda. Waxay markaaba indhaha la raacaan habka iyo dhar xidhashada ninka. Waxyaabaha ay si fiican u eegaan waxaa ka mid ah dharka isku soo baxaya marka la xidho ama isku quruxda badan marka la xidho. Number 5. Socodka. Haddii gabadhu bogto socodka ninka, waxay tani noqonaysaa inay qiimeyso. Dumarku waxay aad ula socdaan habka iyo talaabada ninka, kadibna waxay dib u qiimeynaysaa socodka iyo hanaanka. Socodka laga hadlayaa maahan mid istutusnimo ah, balse waa mid dabiici ah oo aanu qofku iska samaysan karin. Iska jir haddii aad isku daydid socodka qiyaaliga ah, in lagu naca ayaad u dhowaan doontaa. Number 6. Furfurnaanta waa goob kale oo aad qiimo iyo qaayo u leh dumarka. Furfurnaanta raggu waxay u saamaxaysaa inay cid kasta la hadlaan una sheekeeyaan. Dumarku waxay aad u neceb yihiin ragga aamusan ee hadalka gaaban. Horaa loo yiri dumar waa sheeko. Number 7. Qosolka iyo dhoolla caddaynta waa mid ka mid ah goobaha ay eegaan dumarku. Guud ahaan dadku ma jecla qof xidhxidhan ee aan afka kala qaadin. Haweenkuna waa la mid oo waxay jecel yihiin qof dhoolla caddaynta ka soo horeysa oo qosolku qaabila. Haddii gabadha waxay ka sheekayso aad markaaba ku qosasho, waxay gabadhi aaminaysaa inaad xiisaynayso sheekadeeda oo qalbiga ayay kuu furaysaa. Number 8. Sheeko badnida. Haweenku way xiiseeyaan sheekooyinka. Waa haddii ay la dhacaan nooca sheekada, laakiin si ogow nooca sheeko ee ay gabadhu jeceshahay, ileen gabdhuhu waa kala dooqe. Number 9. Habdhaqanka. Dumarkan qaarkood waxay markiiba eegaan habdhaqanka ninka ee bulshada ka dhaxaysa. Kadib markay ku qancaan ayay istusaan inay mudan tahay inay la xiriiraan. Meelaha ay haweenku habdhaqanka ka eegaan waxaa ka mid ah qaabilaadda bulshada, salaanta, ixtiraamka, dabeecadda wanaagga, dulqaadka, hadallada wanaagsan, qadarinta, dhowrsanaanta, balan ilaalinta, degenaanta iyo sifooyinka wanaagsan ee uu muujiyo ninku. Qodobka ugu dambeeya. Number 10. Hadallada dabacsan waa goob ay dumarku qaarkii xooga saaraan. Ragga hadallada dabacsan leh dumarka qaarkood way ka helaan, kadibna waxay aaminaan inuu nin fiican yahay oo aanu hadal xumi ka soo bixi karin. Ragga hadallada qalafsan dumarku ma jecla, mana xiiseeyaan. Waa intaas saaxiibayaal, waan filayaa inaad wax badan ka fahantay muuqaalkan like inoo sii wax badan ay inoo tahay. Insha Allah, until muuqaalka xiga. Salaam.